السلام عليكم soo dhawaada muuqaalkan yar kooban waxaan rabnaa inaynu update yar oo cusub kaga bixino the funded trader marka koobaad waxaan rabaa inaan isla ogaano company-gani wuxuu bixiyaa 3 account oo kala duwan marka mid waliba wax gaar ah ayuu khuseeyaa waxaan rabaa inaan si guud mar ah aan ugu soo celiyo sababtoo su'aalo badan ayaa ka soo laablaabtay muuqaalkii ugu horeeyay ee ka duubnay shirkadana update baa ku dhacay oo akoonnada qaar bay wax ka bedeshay sidoo kale akoonno cusub oo ay lahayd commission ay ku soo qortay ayaan wali wax ka soo baxeen laakiin update u baahan iyo inaan halkan ku yara sharaxno waxa looga jeedo marka koobaad muuqaal hore aan ka soo duubnay oo aan telegramyada dhignay oo aanu kaga digaynay in akoonkan one step challenge inaanu sidii hore ahayn la moodayay oo update dambe lagu sameeyay dad badan ma soo daawan marka waxaan go'aansanay inaan YouTube ka soo dhigno si qof waliba uu dib u raaci karo reference u noqon karto sababtoo channel-ka Telegram-ka muuqaalka la soo dhigo wax kala ka dambeyn kara marka dadku ma heli karaan uu ka fogaan karaa one step challenge akoonkan loo yaqaano horta hal buu ka kooban yahay 100k buu ka kooban yahay kaliya wax kale ma bixiyaan shuruudihiisa dhan halkan bay ku qoran yihiin laakiin akoonkan markaad one step challenge hal challenge marka ka gudubtid maxaa xigaba ayaa isweydiin ah oo dad badan halkaas ay inta badan khalad fahmaan akoonkan one step challenge markii aad ka gudubtid 10% target-kii aad gaartid ma heli doontid akoon funded ah marka waa isfaham waaga koobaad halka uu ka yimi weeyaan haddaba muxuu helayaa qof maadaama target-kii 10% ka uu gaaro waxa uu helayaa lacagtii fiiga ahayd oo isku diiwaan geliyay oo kala duwaneed oo options badan ahayd oo ilaa lacagaha 300 bay ka bilaabmayeen ilaa 10 kun way gaarayeen lacag la isku diiwaan geliyo ayaa loo soo celinaya lacagtii fiiga ahayd oo lagu soo daray 40% faa'iido marka qofkii one step challenge ka gudbay halkii uu heli lahaa akoon funded ah bedelkeeda waxa uu helayaa 40% lacagtii isku diiwaan geliyay ah salahan $300 isku diiwaan geliyay 40% waxay ka noqonaysaa 120 marka 120 faa'iido buu helayaa maadaama uu ka gudbay one step challenge halkaasna ayuu ku xidhmayaa marka ma aha wax akoon funded ah lagu siinayo waligaa haysan kartid waa sababta uga duwan yahay akoonnada kale iyo shirkadaha kale ee dadka badankooduna ugu khaldameen taas cadeynteedu waa intaas qofkii u baahan inuu iska diiwaan geliyo isagoo saa u ogdahay iska diiwaan geliyo laakiin qofkii kale yaan ku kalsoomin oo akoon funded raba qofka hadduu akoon funded rabo wuxuu qaadan karaa koodan loo yaqaan package-keeda loo yaqaan standard challenge afar akoon bixiya marka haddaynu kan oo kale eegno waad aragtaan faahfaahinta oo dhan halkan bay ku qoranta marka isagu muxuu kaga duwan yahay kii hore wuxuu kaga duwan yahay option-kan ama shuruudan profit split kala qaybsashada faa'iidada oo ay ku soo qoreen 80% up to 90% with the scaling akoonkaagana waa lagu korinaya markastoo aad 10% ku dartid scaling baa lagu sameynaya marka tan buu kaga duwan yahay haddaynu halkan kale ku noqono bal one step challenge bal waxa ku qoran aan eegno kuma qornaba buy out kaliya ku qoran buy out kuna waxa weeye 100% refund ayaa lagu sameynaya lacagtaas ku diiwaan gelisay ayaa refund lagu siinaya plus 40% profit oo loo geeyay 40% faa'iido marka taas inuu ogaanaynaa su'aasha kale ee dadku badanku soo weydiiyaan waxa kamid ah akoonkan loo yaqaano ama package-kooda loo yaqaano rapid challenge waagii hore halkan commission baa ku qornaan jiray imika laakiin waxa bay ku soo kordhiyeen saddexdan account sidii aan la xiriirnay shirkadda iyo shaqaalaheeda waxay noo sheegeen inaan wali waxaan dhammaystirin ay maalmaha soo socda ay shaacin doonaan marka qofna yaanu isku mashquulin waxaan hatta meel laga iibsado ma laha imika akoonkan haddaynu eegno standard challenge qofka marka soo gashay halkan buy baa ku qoran laakiin kan ma laha kan aan rapid challenge loo yaqaano isagu ma laha waxba ma laha sidoo kale waxaan ku qoran waa standard challenge shuruudihiisa oo kala ku qoran marka akoonka wax la moodaa in qoraaladani wax sax ma aha marka coming soon ayaan soo qaadanayna maalmaha ay soo shaaciyaan ayaan la soo wadaagi doonaa akoon bila challenge ay soo shaaciyaan oo qofku inta iibsan karo
aanu steptii labadii face aanu mari karin aanu maraynin kadibna uu sidaas oo ku bilaabayo shaqada lacag soo baxdana ay percentiga ay qiimeeyaan iyagu qof qaadan karo marka isaga way sugaynaa su'aasha kale ee dadku soo weydiiyay waxa weeye hababka lacag lagu bixin karo marka akoonkaaga waad ku bixin kartaa kaarkaaga mastercardka ama visa cardka sidoo kale payable iyo cryptocurrency kale waad ku bixin kartaa laakiin aad waxaad kula baxaysaa maadaama bangi Soomaaliya haddii aad haysatid kulama bixi kartid marka waxaad kula baxaysaa walsiyada cryptocurrency marka aad kii aad haysatid ama qof kale kiisa aad kula bixi kartaa waxun maaha sidoo kale sidaad qiimo dhimis haddii aad code ka heshid kuban code haddii aan kuu soo dirno aad heshid sidaad qiimo dhimis u samaysan lahayd ayaan halkan kaa tusaynaa marka bay tirahdid akoonkan tusaale ahaan 400 ah markaad click siisay halkan baa kuu soo baxday marka halkan ay ku qoran tahay kuban code-ka ayaad click siinaysaa halka kadibna waxaad gashanaysaa kuban code-ka aad siisatay ee qiimo dhimista marka inagu waxaan haysanaa mid 15% ah oo group telegram ka soo heli doontid marka click baad siinaysaa halkan kadibna halkan ayaad ku qoraysaa kuban code-kii haddaad soo copy garaysayna waad gelinaysaa haddii kale aad ka xifdisan tahayna xarfahana waad iska ilaalinaysaa kuwa waaweyn kadibna waad gashanaysaa marka gashadii halkan apply ayaad click siinaysaa kadibna saasaad ku helaysaa qiimo dhimistii ahayd 15%. marka kuban code-kan channelka telegramka ka soo heli doontaan channelada telegramka waa 3 ilaa 4 ka soo heli doontaan ama si khaas ah u soo weydiin doontaan wixii aad su'aal qabtaana commentiga noogu reeba ama si toos ah noo soo xiriiro. Assalaamu calaykum.